dhacdada maanta ugu hadalhaynta badan baraha bulshada waa ciidanka dabdamiska Somaliland oo ku guuleystay daminta dab xalay ka kacay magaalada Jigjiga si gaar ah fariinta hadalhaynta badan abuurtay ayaa ah inay ciidanka dabdamiska Somaliland ka awood bateen ciidanka dabdamiska Itoobiya magaalada Jigjiga oo ka tirsan Itoobiya ayaa xalay oo dhan gubanaysay kadib markii uu suuqa weyn ee Jigjiga qabsaday dab halkaas oo ay ciidanka maamulka Soomaalida iyo gurmad kale oo ay ka heleen dhinaca dawladda federaalka Itoobiya ay damin waayeen dabkii qabsaday suuqa weyn ee Jigjiga intaas kadib maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge oo saqdii dhexe ee xalay ka hadlay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland ayaa ku dhawaaqay gurmad degdeg ah oo loo fidiyo dadka magaalada Jigjiga oo xaalad adag ku jiray waxaana halkaas degdeg uga baxay maayir Cabdikariin Axmed Mooge iyo ciidanka dabdamiska Somaliland oo wata 18 gaari oo ah dabdamis iyo dhowr gaari oo kale iyo taliyaha ciidanka dabdamiska Somaliland ayadoo ay dhowr saac kadib tageen magaalada Jigjiga welina aan la damin dabkii ka holcayay bartamaha Jigjiga durba ciidanka dabdamiska Somaliland waxay halkaas ka fidiyeen gurmad degdeg ah maadaama ay ahaayeen ciidan u tababaran ka jawaabidda xaaladaha degdegga ah waxaana ay ku guuleysteen inay soo afjaraan saacado kooban dabkii weynaa ee qabsaday suuqa weyn ee magaalada Jigjiga maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge oo halkaas ka hadlay ayaa sheegay inay Jigjiga ahayd meeshii koowaad ee looga soo gurmaday Hargeysa markii uu suuqa waaheen ee magaalada Hargeysa gubtay waxaana uu sheegay inay gudayaan abaalkii loo galay taasi oo xalay iyo maanta ka muuqatay magaalada Jigjiga waxaana lagu guuleystay in la damiyo dabkii weynaa ee ka kacay magaalada Jigjiga sidoo kale ciidanka dabdamiska Somaliland waxay soo jiiteen indhaha caalamka iyo dawladaha dariska iyadoo ay Somaliland noqotay meesha ugu dabdamiska fiican dhulka Soomaalida waxaana ay dadka Somaliland dawlad iyo shacab mudan yihiin bogaadin iyo ku dayasho fadlan daawade muuqaalkan sheer garee like na saar oo gaarsii asxaabtaada